degmada Baraawe ee caasimada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa taariikhda inta la og yahay waxa ay yeelatay garoon diyaaradeed oo ay isticmaali karaan noocyada kala duwan ee diyaaradaha ka shaqeeya gudaha dalka Soomaaliya. Diyaaradii ugu horeysay oo ka duushay degmada Baydhabo ayaa ka degatay degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose. Waxa qayb ka ahaa safarka diyaaradaasi wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka maamulka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed Eelay oo sheegay in Baraawe ay yeelatay garoon rasmi ah. Inkastoo qaybo badan ay dhismo ku socdaan garoonka diyaaradaha degmada Baraawe ayaa haddana shirkadda duulimaadka diyaaradaha Salama Travel Agency waxa ay sheegtay in ay dhawaan bilaabi doonaan duulimaad u kala goosha magaalooyinka Baraawe iyo Baydhabo. Gudoomiyaha degmada Baraawe ee caasimada Koonfur Galbeed Soomaaliya gudaha garoonka diyaaradaha warbaahinta kula hadlay ayaa waxa uu si aad ah u soo dhaweeyay duulimaadka degmada Baraawe ka bilowday. Waxa uu sheegay in talaabo horumarineed ay tahay tani in wasiirka gaadiidka ee dawladda cirka iyo dhulka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Xasan Eelay oo diyaarad baroowa ah ku soo dejiyo degada airportka degmada Baraawe ee caasimada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed waxa maaratay wanaag galay iyo quruxda badan in wasiirka wax badan howlaha maaratay oo shaqo iyo juhdi badan uu muujiyay sidoo garoonkan u furi lahaa ama uu u baroowen lahaa shaqadii wanaagsaneed ee laga qabtay kadib saraakiisha iyo maamulka degmada ayaga naftirkooda oo ka geystay gacan weyn siday u soo dhaweyn lahaayeen u qaabili lahaayeen wasiirka amnigiina waxay ugu sugi lahaayeen una sameyn lahaayeen soo dhaweyn wanaagsan oo maaratay wasiirka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed waxaana mahad leh cidii elboorkan gacanta ka geysatay ha naqato dawladda Koonfur Galbeed ha naqato dawladda federaalka iyo hay'adaha fanka bixiyay sida SSF iyo kuwa kale maaratay jecel in horumarada maaratay deegaankan loo shabeelle ama dawlad goboleedka ahmiyadda goonida ah siinayo. Saraakiil iyo maamul kale oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose oo iyagana hadlay waxa ay mahad ballaaran u jeediyeen wasiir Xasan Xuseen Maxamed Eelay wasiirka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka maamulka Koonfur Galbeed oo ay sheegeen in muddadii uu xilkan hayay juhdi badan uu geliyay sidii degmada Baraawe uu garoonkeeda u shaqeyn lahaa. hadalna ma toosi karna mana sixi karna maxaa yeelay haddii la yiraahdo adduunka inta aan ku nooleen Baraawe oo airport diyaaradda soo degatay oo haddii la yiraahdo ayaan maanta haysanaa 42 sano jira aniga haddii la yiraahdo Baraawe oo haddii la yiraahdo garoon leh maanta igu horeyso marka farxadda aan maanta haysana soo ma koobi karno mudane wasiir adiga wafdigaaga waxa in kaga mahadnaqaynaa sida sharafta leh geesinimada leh ismiidaaminta leh kartinimada leh ee aad haddii la yiraahdo garoonka u furtay maanta bacdama waxaan rabaa inaan halkaan aan ku soo dhaweyno ka maamul gobol ahaan iyo kan degmadaba wasiir Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay loo yaqaano wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka mudan wasiir horeen soo dhawaada adiga iyo wafdigaaga maanta maalin oo farxad badan waaye farxadeynana aad oo sarakacsan tahay qaasatan wasiir Xasan oo mahad celinayna oo maanta garoonkii noo furay degmada Baraawe haddaan nahay amniga ciidamada Amasom iyo SLA iyo kuwa maamulada na wax weeye amniga aad okay aan ka dhignay annaguna inaan ku guuleysano waa jecelnahay oo waxba maaragtay ay halkii ahay qashqashaad oo isa dhicin waa inaan ku guuleysano waa rajaynaynaa mudane wasiir ku soo dhawaaw garoonkii degmada Baraawe adigana waa ku mahad celinaynaa waxa ku mahad celinaya in allaale intii wax weeye ku nool
degmada Baraawe degmada Baraawe ee caasimada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaanan lahayn inta taariikhda lagu sheegay garoon diyaaradeed marka laga reebo garoomo yaryar oo ay si caadi ugu soo degi jireen diyaaradaha militariga wasiirka wasaaradda duulista hawada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed Eelay oo degmada Baraawe garoonkeeda kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in tani ay qayb ka tahay horumarka uu maamulka Koonfur Galbeed wado wuxuuna shacabka iyo waliba maamulka degmada Baraawe uu ugu hambaliyeeyay in degmada Baraawe ay yeelato garoon rasmi ah dhamaan mahadwale in sugnaatay Ilaahay Ghafuur Raxiim kahay oo geek unu dhan oo iska duuban garoonka inuu si ku meel gaar ah diyaarahan ku degto ninka diyaaradin koreyta ku degto Ilaahay aan ka mahadnagaan Ghafuur Raxiim kahay oo hoolasneen suurta gali ثانيا ولا كلام ما حد نجانا دتك هولون شقدون حقوبة دمانتي أو إسك دوبهم هو SSF هو دتك بارتنا هالكلا الشقياي إنجنير هذا أمي صوم الله أنتي أول بنشال درير فن معمول ذي حمري دقمدهم براو سينشال هريين سراكيل عيد ماذا هديو نقدان دينك ملتريكا حوق دالك إيه هدي نقدان بوليسك إيه بمان أو مدرير براو إسك دوبهم ما حد نجان بالحقيقة ولين تمالين فرحة مالين تاريخ ده إذن كمان يسمعون إن أتجيكم ونوت إنه تيجن ولي فضاي إني أنا نجدو بالله وكون قرونكم جيل الشيدة قلب دكاي جوبروجا هاي مكمل جناينا مركب الشيدة شيء دكاي دتك الشيدة شيء دكاي يكون متاعي ولي الله مرة يمد بدن دبعت بدن الله مرة قرونكم إني جيك له كده دبعت بدن الله مرة ولي ما هاد نجاي دتك دبعت راس قرونك هang مرة دمانتي أسك دوبن ما هاد نجاي سيد السين وقتين دلال لين دعاري دلال لين شيدوي دلال لين تومي دلال دبهang مرة أنت دوغنا ما هاد نجاي لكن كشلي قرونك أنفعن سناين جيك أرجون وسنفتيس وسو أرجدون والترك ولا قرونك وسو قبل دون وسو أرجدون إن شاء الله تعالى ولي رجينا إني أمد الصومالية دون إلهي دبكو قادو قارهان غير براوة أو قرون لان هاي أو قفكي جيك قرابة أما داوع أما حلسه أما جبرتيبه أو فوله أما هدي عذر بدي ميل ولا كدير سيا والله هاي إني يوجي جيك وكبهن إن شاء الله ولي جيك لكبلاو قرونك أوفيشال من فرن لكن إن شاء الله تعالى أسبوع والبولي رجينا إن الديار دي كويت سكمل جاري أن كويت محمد آدن جناو كي تي في دقمة براوي قبل كشبه لده هوسي